kalsooni kalsoonidu waxa weeyaan inaad naftaada u aragto mid wax soo saari karta ama wax qabsan karta guulna gaari karta. naftaada markaad ku kalsoonaato ayaad higsan kartaa waxaad rabto, waana furaha ugu muhiimsan ee guusha lagu gaaro. hal fura u muhiim ah guusha waa kalsoonida, hal fura u muhiim ah kalsoonidana waa diyaargarowga. aan soo qaadano sheekadan aabe iyo gabadhiisa dhex martay. aabe ayaa gabadhiisa oo yar ayuu dalxiiskeeyay si uu soo daawato beeraha xayawaanida iyo webiga. iyagoo dul socda buundada ama biriishka ayaa aabihii gabadha ku yidhi, aabe saadan u dhicin, gacanteeda qabso. kadib gabadha oo caqli badnayd ayaa aabihii ugu jawaabtay, aabe adigu qabo, waxaa laga yaabaa anigu inaan kaa siibto kadibna aan ka dhaco webiga. kalsoonida aad u hibayso dadka kaa mudani waxay kaa badbaadisaa hadimooyinka. ahaw naftaada, inaad naftaada ku kalsoonaato oo aad cidna la barbar dhigin waa jidka guusha. waa ku abwaankii Soomaaliyeed lahaa, ha ka dayrin weligaa noloshaad la daristahay, ha u doodi nabidka mid kale oo ku dayasho ah. aqoontu waa furaha guusha, waana mid ka mid ah astaamaha lagu gaaro guusha. aqoontu waa iftiinka nolosha, waana miisaanka uu qofku kala saaro ama ku kala sooco guusha iyo guuldarrada, samaan iyo xumaan. waatay murti Soomaaliyeed ahayd, aqoon la'aan waa iftiin la'aan. aqoontu waa anshax, waa edeb, waa anfac, waana shay ugu qaalisan uu qof hanti ahaan u leeyahay, waana shayga u sahlaya in aad gaadhid himiladaada. tusaale haddaad tiraahdo waxaan doonayaa inaan noqdo wariye oo aadan baranin cilmiga saxaafadda, waad ku guuldarraysanaysaa inaad noqoto wariye fiican. si aad guul uga gaadho mihnadaada waa inaad marka hore barataa cilmiga saxaafadda. raadinta aqoontu waa si ka mid ah siraha guusha. haddii aad xiisaynayso muuqaalada noocan oo kale ah, soo biir kanaalka oo subscribe saar. sidoo kale wixii faallo ama tacliiq nagu soo qor kommentiga. muuqaalkana like saar. mahadsanid.